السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا channelka Gradshi waqooyiga Kuuriya muuqaalkeenan maanta waxaan ku soo qaadanaynaa mowduuc ku saabsan waqooyiga Kuuriya kusoo dhawaada kanaalka Gradshi waaniga Maxamed Cali fadlan muuqaalka like saar kanaalkana ku soo biir si aad ula socotid muuqaal kasta oo soo dhignana gambaleelka furo mahadsanid madaxweynaha waqooyiga Kuuriya ayaa waxa lagu magacaabaa Kim Jong-un tirada dadka ku nool waqooyiga Kuuriya ayaa waxa lagu qiyaasaa 26 milyan oo qof inta badan dadkan waa qaar diin laawayaal ah caasimada Pyongyang ee waqooyiga Kuuriya ayaa waxa lagu qiyaasaa dadka ku nool inay gaarayaan 3 milyan oo qof caasimada waqooyiga Kuuriya ee Pyongyang waxa ku yaala garoonka ugu weyn caalamka kaas oo lagu magacaabo Mayday caasimada waqooyiga Kuuriya ee Pyongyang laguma ogola inaad sida doontida soo degtid amba aad ka soo deegi kartid waa inaad sharci ka haysataa amba ogolaanshan aad ka haysataa madaxweynaha waqooyiga Kuuriya amba madaxda sare caasimadan ayaa waxa ku nool dad darajo sare ka gaaray nolosha sida siyaasiyiinta waqooyiga Kuuriya lagama ogola daawashada telefishinada aad doontid amba kuwa rabitaankaaga saddex telefishin oo ay dawladdu ku qoondaysay kaliya ayaa daawanaysa haddii aad ku xadgudubtid sharcigaas oo aad daawatid ciqaabtaadu waxay noqonaysaa ciqaab aad u daran oo in lagu toogto waqooyiga Kuuriya lagama ogola akhrinta kitaabka Bible cagsigeeda taasi haddii lagu arko ciqaabtaadu waxay noqonaysaa in lagu toogto amba in lagu daldalo sidaas oo kale waxa la mid ah daawashada filimada la xiriira galmada ciqaabtaaduna waxay noqonaysaa dil amba in lagu toogto waqooyiga Kuuriya kama jirto sidaan doono ama sidaan rabaayeen xirnaya timahayga taas waad ku qaldan tahay dawladda ayaa u qoondaysay 28 nooc oo kaliya ragga ayaa timaha u xiran kara 10 nooc inta soo hadhay oo ah 18 noocna ay u xiran karaan dumarku laakiin si madaxweynuhu sida u xirto way ka duwan tahay qaababkan uu soo dejiyay sida uu taasi u sameeyo ayaa ah inuu yahay qofka ugu madaxa sareeya amba madaxweynaha dalka haddii uu qof dambi aad u weyn u geysto waqooyiga Kuuriya qofkaasi kaliya la xirimaaya 3 jiil ayaa la wada xiraya sida taasi loo sameeyo ayaa in la yareeyo faldambiyada dhacaya iyo haddii uu qofkani u baxsado in la haysto reerkiisi oo ku adkaanaysa inuu baxsado qofkan falka dambiga geystay waqooyiga Kuuriya waa dal horumar ka gaaray dhanka technology-ga waxay leeyihiin nidaam system oo lagu magacaabo Red Star OS website-yada dalkaasina kama jirto website-kan doonayaan galaya dawladda ayaa ku cayintay website khaas ah oo geli karto kuma jirto website-yada ajaanibta dalkani ayaa la tirsi taariikhdu gaar ah hadda 2021 iyaga waxay u tahay 108 sano dalkani ayaa waxa soo xukumayay 3 jiil oo isdhalay Kim Il Sung Kim Jong Il iyo yarkaatan ka taliya ee Kim Jong Un muuqaalkiina maanta inta uu ka eegyahay wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh